Waxaan idiin wadaa qiso dhab ah, waxayna ku dhacday gabar Soomaaliyeed. Waxaan ahay gabar da'yar oo 23 jir ah. Waxaan jeclaaday wiilkaas oo ah markii hore si kadis aan isku baranay, balse caawinaad iyo garab qabasho oo aan markaas uga baahnaa iga caawiyay. Xiriir walaaltinimo ayaa ina dhex martay, isagoo ahaa wiil aad u wanaagsan. Muddo kadib waxaan arkay anigoo wiilka si xad dhaaf ah isku dhexgalnay, sidoo kale dareen gooni ah aan isku hayno. Runtii jacayl iyo kalgacayl xad dhaaf ayaan u qaaday, wuuna iga kasbaday midaas. Nasiib wanaag anigoo kala xishoonaya inaan jacaylkayga u sheegto, ayuuba asaga ii soo bandhigtay inuu i jecel yahay oo marar badan qarsanayay. Anigana isla markii waxaan u sheegay sida dhabta ah ee uu dareenkayga ahaa. Runtii waan isku faraxsaneen. Jacayl aan sawir laga bixin karin ayaa ina dhex maray. Kalsoonida aan isku qabnay ayaa wax walba kasii weyneed, taasoo furaheedu uu ahaa ixtiraam ballaaran oo naga dhexeeya aniga iyo asaga. Marar badan ayuu iga dalbaday inuu kaamirada iga arko anigoo si wanaagsan u labisnayn, si uu u arko quruxdeeda qarsoon, balse xishood iyo cabsi ayaana marar badan ugu diiday. Mar dambe ayuu wuxuu cadaadis igu saaray in aan sawir anigoo qaawan u soo diro, maadaama aan kaamirada ka diiday. Iyadana waan isku dayay inaan diido, balse jacaylka ayaa iga tambadiyay. Markii dambe anigoo raali ah ayaan is arkay, waxaana u diray sawiro oo cawradeeda muuqato oo aan dhar wanaagsan xirnayn. Wuxuu iga ballan qaaday in uu xifdin doono, oo xitaa uu iigu dhaartay. Nasiib xumo, mar baan isku dhacnay arrimo qoyska awgiis. Waalidkayga ayaa igula taliyay in aan wiilkaas iskaga haro oo aan faraha kala baxo, iyagoo igu wargelinaya in noloshiisa hoos ay tahay. Anigana waalidkayga taladiisa ayaan qaatay, maxaa yeelay talo waalid waa lama diidaan. Balse yarkii jacaylka naga dhexeeya ayaa la soo baxay weji aanan ka filanaynin, isagoo igu xujeeyay in aan guur qarsooni ah ka aqbalo, amaba hal mar si xaaraan aan iskugu tagno. Haddii kale wuxuu igu hanjabay, waxaan dhexda kaa dhigi doonaa fadeexad aadan weligaa ka soo kabsanin. Sawiradaada qaawana adduunyada ayaan ku faafin doonaa. Anigana wadna xanuun ayay igu abuurtay ficilkaas, waayo marnaba kama aanan filanaynin. Waxaan bilaabay in aan ooyo oo aan si walba iskugu dayay in aan baryo. Si walba xitaa waan iskugu dayay in aan iskaga maslaxeeyo. Anigoo hal mar aanan kula seexan lagama yaabo in aan kaa haro ama aan ku iloobo. Xitaa waxaan isku dayay in aan ugu cabsiyo booliiska oo aan dhaho booliiska ayaan kugu dacweynayaa, laakiin wuxuu taagan yahay wax walba keen, balse ogow in aan sharaftaada wasaqayn doono. Taas ayaana ka daran booliiska aad sheegayso. Runtii dhib aan la koobi karin ayaa i haystay iyo walwal. Muddo dheer xitaa si wacan uma aanan harsan, uma aanan seexanin. Waxaan go'aansaday intaan sharaf darro iyo waji xumo u soo jiidi lahaa waalidkayga iyo walaalahayga dhammaanba, inaan u sameeyo waxa uu iga rabo. Waana u sameeyay. Maalintaas wixii ka dambeeyay waan iskaga haray, asagana maalintaas wixii ka dambeeyay wuu i nabadgeliyay. Waxaanba ku faraxsanahay inuunba sawiradii faafinin, maadaama uu dantii uu lahaa iga gaaray. Horta waa sharaf darro in aad gabar ku aamintay aad saas ula dhaqanto oo waliba ku jecel. Inaad sidaas kula dhaqanto horta wax wanaagsan maahan. Gabar walbo Soomaaliyeedna waxaan u sheegi lahaa in aysan fududaanin, waayo ma jiro qof lagu kalsoonaan karo, qof la aamini karo waqti xaadirkan la joogo. weligaa qof bilaadan ku kalsoonaanin, hana aaminin ilaa ay xad. kaliya naftaada aamin, shakhsiyadaada ku kalsoonow. gabdhahana waxaan dhihi lahaa waxyaalaha sharaf darrada u keenaya inay iska ilaaliyaan, sida gabadha hadda oo kale, si aysan adigana kuugu dhicin. iska ilaali mar walbo. fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe inoo taabo. haddii aad hore inoo joogto waad ku mahadsan tahay. videogana like inoo saar, share inoo dheh. wixii fikirkaadana waa muhiim. mahadsanidin.